aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan barnaamijkan ka soo qayb galo runtii oo aad iyo aad muhiimka u ah oo ay dhalinyarada gaalkacyo qaybaheeda kala gedisan ayagoo isku wada duuban ay meeshaas ku sugan yihiin diyaarna ay u yihiin inay kaga hadlaan isdhexgalka nabadda wada shaqaynta iyo isku xirnaanshaha intaba runtii barnaamijkan hadeertaan shirka nabadda waxaa ka muuqda koob wasiirku wuxuu ka hadlay lahaanshadaas waxaa koowa waxa weeye inta looga meesha ku qoran waxaan maleynaya inay yihiin dhalinyaradii gaalkacyadoo isku duuban inay meesha ka muuqdaan iyagoon cidna khasbin cidna jinjin inay isugu yimaadeen meesha diyaarna u inay barnaamijka jiilka nabadda ay ka wada shaqeeyaan runtii barnaamijka jiilka nabadda haddii aan ayar guda galo faa'iidooyin badan buu leeyahay baan dhihi karaa oo waxa weeye aada muhiim u ah oo ugu horeyso waxa weeye in dhalinyaradu sheekaystaan wada hadlaan waxyaalo badan buu baraya oo ay ka mid tahay tanaasulka dulqaadka wada hadalka oo kale isoo dhawaashaha midnimada iyo wax wada qaybsiga iyo lahaanshaha intaba runtii waxa weeye maanta waxaa loo baahan yahay kaalintoodii in dhalinyaradu inay u guddo ay kacdo oo ay mar labaad waxa weeye dowladnimada Soomaaliya soo celiso waxaan leeyahay dhalinyaro soo dhawaada marka ugu horeyso galabta waa galab qiimo badan sharaf badan barnaamijkan waxaa la yiraahdaa jiilka nabadda waxa program socon doona hadduu aan leedno waa program looga shaqeyn doono sukeeninta isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waxaan ognahay gaalkacyo inay ka daasho colaad iyo dhibaato waxa weeye markan dhalinyarada waa soo jeesteen dhalinyarada waxay u soo jeesteen inay ka shaqeeyaan horumarka inay ka shaqeeyaan midnimada haddaad ogaan jirteen dhalinyarada lagu adeegto hubka loo dhiibo islaaya maanta dhalinyarada way ka gudbeen waxaana waxa weeyaan hormuud u noqon doona dhalinyarada gobolka Mudug oo isku mataqaanaa isku duuban aad iyo aad waxaan u faraxsanahay markii labaad annagoo wadnaa dan guud iyo in gaalkacay ay mid noqoto inaan howlkan iskugu nimaano markii ka horreysay waxaan iskugu nimid barnaamijkii sheekh iyo sheeko oo in badan wiilal iyo gabdho badan ay iska barteen barnaamijka jiilka nabadda oo daafurkiisii maanta aan halkan u fadhino waxaan rajaynaynaa in badan wax cudurkii daawadiisii la waayay gaalkacay arrintii ka taagneed inuu soo afjaro barnaamijka meesha laga furay oo u baahan waqti badan in laga hadlo waana alxamdulillaah baan leenahay maanta hadduu bilowday jiilka nabadda magaalada gaalkacyo marka alxamdulillaah guul weeyaan caawa oo waxaa guul noo ah inaan maanta aan ka shaqeynayna nabadda ururkaasi ninkay aqoonsadaan maamulku waa inuu aqoonsadaa qolada galmudugna sidaas oo kale u samaysan tahay saan qiyaasayo maxaa yeelay ururo badan way jiri karaan laakiin waxaa aad u fiican inay wada shaqeeyaan mahadle waxaan kaloo mahadle dhalinyarada soo abaabushay hawshan oo xag aakhiro iyo xag adduunba ajar ku jiro waxaa isweydiin mudan yaa colaada wada yaa xabadda ridaya oo qofka kale ku ridaya waa dhalinyaro yaa victim u noqonaya oo dhibaatada ugu badan ay saameynaysaa waa dhalinyaro yaa qaxaya yaa waxbarashadoodii lagu ciyaaraya yaa inay deegaankii ay ku dhasheen ku barbaaraan oo ay ku guursadaan oo ay ku koraan yaa loo diidayaa waa dhalinyaro marka waxaa ogaataan geedkii aada saarnaydeen qof goynayoo kala weeye waxaan adigu faraxsanahay guddoomiyuhun hadda ii sheegay aways inaadnaan hay-ad iyo NGO iyo maxaa la dhahaa cid hadda idinka kaalmayso mashruuc idinku samaynaysa aysan jirin